بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxa aan maanta idin dhigayaa grammarka qaybaha uu ka kooban yahay shalay introduction-kii baan soo marnay ahayd maanta laakiin waxa aan maraynaa qaybaha uu grammarku ka kooban yahay sidiisaba marka waxa uu horeeyaa noun waxa la dhahaa waa magac magaalo noqon kara sida magaalada iyo caasimadda iyo street-ka ama magaca qof ayuu noqon karaa iyo wixii la mid ah marka magac waa qayb grammarka ka mid ah magaca ka labaad waxa way pronoun waxa way sida hadhow toolaan arki doonaa we oo kale inaga ayaa af Ingiriisiga lagu yiraahdaa they oo kale iyaga ayaa af Ingiriisiga lagu yiraahdaa he oo kale isaga ayaa af Ingiriisiga lagu yiraahdaa she oo kale iyada ayaa af Ingiriisiga lagu yiraahdaa waan arki doonaa laakiin pronoun waxa la yiraahdo waa qaybta labaad oo grammarka Ingiriisiga ka kooban yahay adjective-ka waxa la yiraahdaa ama adjective-ka waxa la yiraahdaa waxa uu wax ka sheegaa ma garanaysaa wax buu wax ka sheegaa ama qof buu wax ka sheegaa tusaale ahaan that is magic taasi waa maxay taasi waxay ahayd wax oo magic ah ama sixir oo kale camal ah ama ma garanaysaa wax yani lala yaabo oo ana khiyaali oo kale ayay ahayd moogtay ama that is wonderful taasi waa cajiib weey wax cajiib ayay ahayd marka waxa la yiraahdaa adjective waxay wax ka sheegaan iminka waa tan shalay sheegaynay online he is a gentleman marka halka haduu pronoun soo galo ama subject iyo pronoun waa isku mid haduu soo galo halka subject oo he ama she ama we ama they ah pronoun iyo subject waa inta badan waa isku mid ma ogtahay marka we hadaan raado ama they ama he ama she ama wuxuu soo galo we are wonderful we kadib wax aar la yiraahdaa soo gali doono auxiliary verb oo dhigan doono laakiin imika guud markii baan wali hadda ku jirnaa qaybtiisii labaad waxa weeye grammarku 8 qaybood ka kooban yahay noun oo ama magaalo magaceeda sida city-ga iyo town-ka iyo street-ka loo yiraahdo street waa wado magaceeda yani waa wado moogta wadana waa magac city-na waa caasimadna waa magac town-na waa magaalana waa magac calina waa calibade waana magac magarat umarna sidoo kale iyo etc-gana waa ka jira wixii la mid ah pronoun-kuna waa sida innaka iyaga ama we they he she iyo it he she iyo it iyo you iyo I baa ka maqan 7 pronoun oo waan dhiga doonaa dhowtole marka pronoun iska inta ma ka soo qaatay waa qaybta labaad oo grammarka ka mid ah adjective-kuna wuxuu wax ka sheegaa ama qof ama shay marka that is magic taasi waxa ka dhiganta qof wax cajiib sameeyay oo run ma aha waxaasi waxa xaqiiqo ama waxaasi waa wax khiyaali ah weey camal ama waa wax cajiib ah okay verb-iskan waxa la yiraahdo waa dhacdo waa tan shalatoon waxay ku tiirsan yihiin wax tenses la yiraahdo ama grammarka waqtiyadii ayay ku tiirsan marka waa dhacdo oo qof sameeyay ama wax sameeyeen waa dhacdo dhan baa someone ama qof baa sameeyay ama shay baa sameeyay shaygaas marka wuxuu noqon karaa faras baa sameeyay libaax baa sameeyay wan baa sameeyay lax baa sameeyay waxay rabo noqon karaa moogta marka an action done by something ama someone labada mid ka doon marka laakiin imika waxaan ka soo qaadanaynaa kaba soo qaad iyadu qof sameeyay qofku waa maxay marka inuu wax akhriyo kale inuu wax cuno kale ama inuu seexdo oo kale xayawaankuna inta waa saameyn kara ma garanaysa libaax wax waa cuni kara waana seexan kara waana akhriyi karin bas marka waa verb waxa weeyaan verbiguna qayb ka mid ah 8 qaybood oo grammarku ka kooban yahay ilaa waxaan idin grammarku wuxuu ka kooban yahay 8 qaybood English grammar consists of 8 parts qaybtiisa saddexaad waxay noqonaysaa adverb waxa weeyaan dhacday wax ka sheegaan tusaale ahaan waxay wax ka sheegaan express waxay cadeeyaan wax ka sheegaan how something done sida wax loo yiri ama loo sameeyay amka hadaan idhaahno Ali wuxuu u socdaa si ma garanaysaa si in muxuuha yani uu tukubaya amal hadaan idhaahno waxa Ali walks slowly waa tukubaya moogtay Ali walks slowly ma garatay marka walks-kaasi waa verb hadhowaan wax ka xagga dambe ka sheegi doona marka aan dhigayno tennisyada verbiguna wuxuu wax ka sheegaa wuxuu wax ka sheegaa dhacdo oo ama qof sameeyay ama shay sameeyay iyuu sheegaa wax kaba sheegaa wuu sheegaa adverbisku laakiin waxay ka sheegaan dhacday
wixii ma garanaysaa laga yacni siday u dhaceen tusaale ahaan cali walks slowly cali wuxuu u socdaa si oo ma garanaysaa aayara ama si oo ma garanaysaa tukuba okay I am impressed frankly haddaan imika dha ereyga frankly haddaan soo qaato frankly waxaa ka dhigan tahay waa xaqiiq ahaan haddaan dhahdo I'm impressed frankly waxaa ka dhigan tahay waxa aan la tacajabay xaqiiq ahaantii waan la tacajabay ama waan la yacni waan ka helay moogtahay marka frequently waa joogta wax si joogta loo sameeyo marka waa adverbiga ayaad ka mid tahay waxa weeyin ma garanaysaa he eats frequently haddaan dhahdo waxaa ka dhigtay si joogto wuxuu cunaa ninkani badlyna waa si xun haddaan idhaahdo gaarigu wuxuu u jiray si xun moogta ama wuxuu ila hadlay si xun she talks to me badly si xun bay ila hadashay she talked to me badly she talked to me badly si xun bay ila hadashay quicklyna waxa weeyaan waa degdeg oo ah ma garanaysaa he drank water quickly biyihii wuxuu u cabay si degdeg ama she came back quickly waxay ku soo noqotay si degdeg ah I ate quickly si degdeg ah ayaanu cunay marka waa adverbs marka I ate id waa subjectgii grammarkii bay kusoo noqonaysaa waqti waa pronounkii ama subjectgii ate na verbigii bay kusoo noqonaysaa oo waa cunidii oo pastigii ay ku xidhnayd tenniskii ay ku xidhnayd oo pastigii ahaa ayay ma garanaysaa kusoo noqonaysaa oo yacni waa iyadoo pasta shaysa sidii shalay aan ka hadalnay marka I waxaa waaye waa halkan oo kale waa we iyo they iyo he iyo she iyo I iyo it okay I iyo it oo xayawaanka loo isticmaalo marka haddaan idhahdo I ate quickly id waa pronounkii atekiina waa verbigii buu ka imanayaa oo magarasa waa actionkii aan sameeyey anigu marka quicklyna adverbigii buu ka imanayaa oo ma garanaysaa degdeg ah marka afartaas afar baan soconnaa oon soo dhammaystirnay oo afartaas oo ah grammarka uu ka kooban yahay qaybaha uu ka kooban yahay grammarku preposition waxa la yidhahdaa jiro isku xidha ereyada isku xidha ma garanaysaa muxuu ahaa qof ma garanaysaa waxa isku xidhaan oo relation ama xidhiidh la leeyihiin something ma garanaysa wax meel uu wax ka dhacay ama meel uu wax ka ma garanaysaa lagu sameeyey ayay inta badan sheegaan tusaale ahaan in the mosque masaajidka oo kale ku tukaday imika haddaan dhahaa Isman prayed Isman ama Osman Isman prayed wuxuu ku tukaday intaasaa preposition ah moogta in the mosque marka waxaa ka sheegaysaa masaajidkii dhexdii masaajidka ayay ahayd kamarada waxaa ka yar khaldan baan u malaynayaa way yar gargariiraysaa inside the mosque gacanta yacni saasa masaajidka ugu fiiqayay moogta okay iska dhaafno muhiimadda cashirka inooga muhiimsan kamarada okay waxaa kaloo lamid ah at the station tareenka marka I met him as the station tareenka ayaan wadadii maxaa la dhahdaa stationkii tareenka ayaan kula kulmay I met him at the station afterna waa kadib oo ma garanaysaa I slept after breakfast haddaan dhaa quraacdii kadib baan seexday afterna waa marka waxay isku xidhaysaa shayey isku xidhaysaa waxbay isku xidhaysaa moogtahay marka waxay isku xidhaysaa wax meel lagu sameeyey imka haddaan dhahdo I slept after breakfast quraacii kadib baan seexday marka kadibkii maxay isku xidhay marka quraacdaydii iyo waxay isku ka xidhay moogtahay hurdadii marka on the table haddaan idhaahnana waxaa weeyaan moogtahay tusaale ahaan the phone is on the table telefoonku wuxuu dul yaalaa miiska marka ontaas waxay isku xidhaysaa telefoonkii iyo miiskii uu dul yaalay marka saas ayaa prepositions ku yihiin at baa ka mid off baa ka mid in baa ka mid ma garanaysaa ka mid oo ma garanaysaa out baa ka mid waxaasoo dhan waa prepositions conjunctions waxa la dhahdaa waxaa jira iyaguna sentenceada isku xidha sentenceada ereyada ayay isku xidhaan oo waa maxay they join two sentences laba sentence baa isku xidhaan imka tusaalaan Umar has gone to school Umar wuxuu tagay iskuulkii but laakiin he forgot wuxuu iloobay his books booktiisii buu iloobay laakiin marka labadii sentence waa maxay he forgot his books waa sentence Umar has gone to school waa sentence kale
marka congestion baa la yidhahdaa areas isku xidha. Faarax oo kale mid labaatan soo qaano went on vacation, faarax holiday ayuu tegay, wuxuuna magarasa an waxa uuna lefty ka tegay his wife behind, isla xaaskiisiina uu ka tegay, isaga unbaa socda xaaskiisii buu ka tegay, xaaskiisiina uu ka tegay. marka ma aragta he okay lefty his wife behind waa sentence and magaranaysaa faarax went on vacation waa sentence asaas isku xidha. Interjection waxa la yiraahdaa jira marka oo qaybtii sideedaad qaybtii u dambeysay exclamation way waa wax la yaab leh moogtahay, ama wax roar ama shout, ama hadaa tiraahdo wow, hadaa tiraahdo what is that, hadaa tiraahdo kale waa wax oo cajiib moog aad la yaabto moogtahay. Wow, what is that, what's going on oo kale, oh oo kale, dear me oo kale, waa wax aad la yaabtay moogtahay. marka 8 qaybood buu ka kooban yahay. ma soo gabagabeynayna 10 daqiiqo maanta ayaan casharka wadnay. qaybta kale oo wixii inta ka dambeeya ayaan hadii la raagaleyna. aad iyo aad ayaa idin salaamay, khayr baan isku ognaa khiyaarta qiimaha leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. channelkana de like gareeya oo subscribe gareeya oo share gareeya oo waa sideedii hawlaha xagga ka wada. si channelku waxaan rabaa inuu channelku dhisme oo dad badan ku xidhmaan hadii la yiraahdo. aad baa idin salaamay, khayr baan isku ognaa. Assalaamu calaykum oo wala daawada casharka aad baan idin salaamay.